بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل دي وعلى ونكسر دبار وضع الصوماليات جوب كستا يقول كستا جوكتان وبرنامج كني افتيمينتا وحيري نكي جري بط باي كانت دوني دان لها بايلو ودوف نكي حمسة محبوسها وحسن منافق انتو خميس أصول حري وسو فريسي وكوبي أمباستي طولك على هذا البوير تالك فريستي طولك على هذا الواحد راحتا doorashadii waa dhacday horaa loo dhaaqay waxaase xasan munaafiq ka maqan kaarkii daaroodiisamka iyo hawiisamka iyo diriisamka la oran jiray in dadkii Soomaaliyeed jeexjeexeen wuxuu yiri maqalay warlay ma lagu warramay in waa bariyo dadku wada kaco la waraabsho beer waxa ka codsanaya barnaamijka dug soo gaaray ina si shirkadii sanad ku joogteen u soo tuko hadii kale nabiga sallallahu alayhi wa sallam Muhammad qodobkeena koowaad waxa isku dul taagaynaa ninkii xamsa maxbuus ahaa qodobka labaad waxa isku dul taagayaa meeshii Puntland ahayd iyo lugator oo maanta noo hiiliyay khaasatan hadaan Axmed Hartinahay oo beesha dishanahay noo hiiliyay oo nala hadlay qodobka labaad baan isku dul taagaya qodobkeena koobaad xamsa maxbuus oo khamiis loo soo xidhay soo fariisiyo intii xasan munaafiq maanta sheegay ee beenta ahayd ee wax kama jiraanka ahayd ee nahabnimada ahayd ee wax nin rag shaqaystay oo waxa weeye rag isaga ka horeeyay ay qabteen oo ummadda Soomaaliyeed u qabteen oo marxaatiyadeedii leh oo cadeymaheedii leh la soo fariistay ku sir ku kaambeyn garay intuu xamsa maxbuus la soo fariistay waa copy and paste dan qaran buu yiri dan qaran waa boob qaran kooxdii boob qaran badar iyo beeso fiil qabiyaale wixii joogay ee mooriyaanta ahaa ee xaq bini'aadanka naf iyo maal aan waxba dhaafin xasan ayax iyo kooxdiisii buu wuxuu yiri hadaanu dan qarannahay idan cafinti baanu samaynay qaramada midoobaan ergeygii geynay cunaqabateyntu hubka u qaadnay hadana doorashadii qof iyo codka ahayd baan waa intii xasan munaafiq sheegay waxba kama dhinna waxna kumu darin waliba saasa bidaxa saasuu alxamdulillah ku yahay oo sidiisii hadaanu oran dhulka laga soo baxaya iyo meyd baa cararay iyo ilaa waa maxbuus waa qof xiran warqad baa loo dhibaa warqadaas oo wali caawa iyo warqada hortaal waxay horta la dhigeysta xamsa maxbuus oo khamiis loo soo xiray magaloodkii waxay la dhigeysta cid kasta oo uu dareynaysi ama hunguri ka hayay dib u noqosho iyo doorasho dadban maanta wixii ka dhacay Muqdisho ayaa jawaab ugu filan waxay dadka Soomaaliyeed ka sugayaan hambalyo iyo inay kala qayb qaataan farxadda waxayse u badan tahay ama dhici karta inay dad badani aysan midaas sameeynin taas oo noqon doonta fadeexo iyo ceeb siyaasadeed oo abidkood daba taagnaan doonta arrintan doorashadu waxay ka mid tahay guulo istaba joog ah waa hadalkii xasan munaafiq yiri marka laga yimaado beenta iyo goodiga arintana waxay ka mid tahay guulo istaba jooga guulaha istaba jooga maxaa ka mid ah marka wax allaalay wixii madaxweyne farmaajo qabtay ee aynu u jeednay marxaatiga nool kaamirada laga duubay ee ciidanka lahayd ee deen cafinta lahayd ee ergeyga lahayd ee cunaqabateynta in allaalay intii fayl ee lagu wareejiyay ee hawshiisa soo dhamaatay oo dhan baa la sheeganayaa macnaha la guranaya waa copy and paste oo ay dan qaran xaqiijinaysay sanadihiina soo dhaafay oo ay ugu horeysay deen cafintii cunaqabateyntii hubka in aan kursi ka helnay golaha ammaanka in aan afar cutub oo kamid ah dastuurka dhameystirnay madaxweynuhuna saxiixay tanina waa doorashadii qof iyo codka ahayd ee aan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadno waxa inta sii dheer waxa la xalaashanayaaba dastuurkii xaaraanta ahaa ee nijaasta lagu sii dalacay ee wixii umadu inta isugu timi la yiri war waxaan aynu inta aduun si uu noqonayo oo dad islaam oo caadi imanayaan oo waxa weeye dad wax garada imanayaan oo in bal wax wanaagsan samaysanan bal waxa kan waxa weeye farahan ay nagu jira tamar ma hayneen arbal aan ilaahay ku sugn ee xasan munaafiq afarta qodob ka bedeshay isagoo shaad leg yiri waa tolanaya ayuu wuxuu leeyahay waxa kale oo guul ah inaanu dastuurkii bedelay oo afar qodob aanu ka saarnay afar qodobna aanu gashanay madaxweynuhu uu saxiixay waa maxbuuskii hatta xasan munaafiq inta uu ka xishooday inuu yiraahdo dastuur baan bedelay
وكحشوضي لكن وحي حسن منافق كحشوضي محبوس كان لو سو ديبي دقنتي مقلودكي باسو يستاغي waxaa kale oo guulaha istabajooga ka mid ah afar qodob oo dastuurka ka mid ah oo aanu bedelay oo afar kale ku bedelanay iyaduna guulaha ka mid ah maanta muqdisho guul baa ka dhacday wiil maanta muqdisho guul kama dhicine waxa ka dhacday musiibo isbaar caadi ah baa ka dhacday dadkii xamaal tagayay ee lafuhooda irsi u raadsanayay baa halka qadaadka qori laga saaray markaasay gala faylka وأنا إدارته هل صندوق بيال صندوق قاس والصندوق حسن منافق بعد كذا كوقرن دتكو وشيدا والأرخية حسن منافق بعد كذا كوقرن دتكي مجال ده أسعد الدكان ما أنت مفرين مقدشو أو مهرد مفرين كو عيدنا يكون موريان وحي بقى أنت اللي يسكو دري دتكو حمروين إيو شنجان إيو وابر إيو بس اللي يادو يخشي إيو dadku kama soo baxayn maanta in guriyaha ku jirtay qofkii dibadda lagu arko waxaad moodaa xilligii corona ay gashay muqdisho waxa ku jirtay maanta xilligii coronihii qori buu noqday islaantii istiraahada dab ka doona dariska halka qadaadka baa la qabanaya kaar ma haysto dhac sawir baa laga qaaday waaba kan kaarkii wali gal faylka nin dhalinyaro ah baa wuxuu dacay faylka baxo dhig iyo dhaban buu fujiyay askari dhig iyo dhaban see faylka uga baxdaa kuwii kalena waxa lagu noqday faylka wasakhiyo wasakhdus iyagoo aad moodid baan ku yiri dhimbil ah bay faylkii galeen odayii 70 jirka ahaa waad arkaysiin dhalinyaradii waa arkaysiin musiibadii marka muqdisho maanta ka dhacday isbaaradii muqdisho ka dhacday xulay guul weeye wuxuu noo soo horfadhiyaa dastuurkii aan bedelay ee afarta qodob ka saarnay afar qodob xasan munaafaqashadina guulaha ka mid ahay yani ninkii dawladnimo iyo wanaag xasan munaafaqa sugayo ku qoos qaado oo meeshii ugu dambeysay mar haddii tuuganimadu yani xaaraanta iyo tuuganimada iyo munaafaqnimadu heer bay leedahay yani ninkani wuxuu ka gaaray uu garaad gooyay macnaha inuu ibliis isu bedelo u baahday yani qof kula soo hor fariisanaya qof dhan oo mas'uul sheeganaya kula soo hor fariisanaya wix ummadi ku heshiisay oo markiisa horeba xumaa baanu sii xumaynay ee wix ummadaas raali ka anaga bedelay guulaha iyagana ka mid tahay maantana magaalo dhan isku weer intuu ka qabtay dadkii masaakiinta ah garabaratada qori ku qabtay waa guul buu ku leeyahay horta xasan munaafiq ninka wax ka sii sugayo eegi wuxuu yiri ninkii jiray habar jaclay Muuse waa ka xasan munaafiq iyo xamse maxbuus waa kuwa qofka nada isagu waa sharran yara khayran yara waxna xasan munaafiq ma dhimi karo waxna kuma kordhin karo kaliya waa cajalad CD buu ku ridaa wushta caawa fiican iyo warqad buu akhriyo laakiin dhanxiir baa taa dhanxiirkuna munaafiq waa macruuf hadaad isleedahay umadu kuma aragto ilaahay baa ku arkaa qofka munaafiqa ah wuxuu yiraahdaa dadku kuma arkaan dadku iska eega ilaahay iskama eego dadku iska eega xamse waa munaafiq laakiin waa munaafiq daciif weey munaafiqiinta kala ah waa munaafiq wax cuna oo wax dilo oo wax baabiyo sida xasan munaafiq iyo munaafiq doqon ah adu munaafiq doqon abaad adiga halkaas aan kaaga gudbiya qodobkeena labaad meeshii Puntland ahayd iyo ninkii luuga tooraha horta luuga toor oo salaamaya anaga waxa weey waa nala hadashay reer ahaan baad nala hadashay Axmed Harti hadaan nahay khaasatan dish hadaan nahay waa nala hadashay odagan isaguna maxbuuska ah Cabdullaahi Bile horta waxaad noo sheegtay fariin baad hawada noo soo marisay waxaad tiri Axmed Harti dish show ninkani idinma matali karo madaxweynena uma carari karo madaxweyne ku xigeen uma carari karo hankeedina male bal hadeegi anuguna ninka socdo oo maanta maamulkiisa iyo nidaamkiisa isugu fadhiyo oo waxa weey waqooyi bariyo halka u socdo baan hay hawshuna mar dhow way kala dhamaanaysaa waxaan iska soo bedelabaad odagan maran ee idin hor fadhiya ee waxa weey xilka idin hay'adii show iska bedela idin ma qalmay horta waa ka gudunay luuga tooro odagan 30 sano buu siyaasadda reerka ku metelay isaga kaligi ma ahayn qaar badan oo magalood ah oo doqma ah oo garasho badan lahayn oo aqal badan lahayn oo la mid ah kuwa reerayoga kala doqmaha ku jireen xamse maxbuuskaas badii
magac dhan oo daarood Ismaaciil yahay matala baladeegi 30 sano odagaasi hor fadhiyay oo ilaa iyo federaal ilaa iyo Puntland ku matalay maantana si wanaagsan oo gobonnimo leh baa noola hadashay sida intaad u egtay baa tiri kan idin matali karo hadalku waxa weeye haduu mid yahay laba lagama dhigo Ahmed Hartiyow dishi show ninkani idin matali kara baa tiri sababtoo ah anigu iga liita baa tiri waa run qofka ka liita oday baa laga hayaa oday baa jiray laandheera ahaayo waxa weeye ragii hore ahaayo xiniye badnaa wiil buu dhalay marka wiilku marka wuxuu rabay odagu inuu wiilku hawl kar noqdo deedna wiilkuna waa dadaalaa markaasuu yiraahdaa aabe maanta ka waran bulashada u soo shaqeeyay saas odagu weega xulaa hadaan wax ka liita la arag yani guubaabay u ahay marka lugatorow kani inuu ka liita baad aragtay adiga xaq hoose ka xigo Abdullaahi Bile marka hadalkii danino oran waayay horta adiga la yiri tolnimaana noo tiri waxaan u malaynayaa waa habeenka naaska inuu wada jaqnay eegay islaantii Faaduma Timacad naaska inuu wada jaqnay baa horta noogu hiilis adiga wax ku hiiliyo waad weeydi oo tolka la hadlo yaado arrinkan meesha waxa weeye qofkan ka bedela meesha laakiin adigu wax ay hartiga kale garan waayay baa horta adigu garatay nin baa waxa laga hayaa nin waxa jooga garan waayay wax soo socdana ma garto reer tolkay horaan ula hadlayo ku yiri waxan magaloodada ah ee wada maxaabiista ah in aqliga garashada lahayn in damiirka lahayn ee magaciin iyo sharafkiin iyo karaamadiin baabiye war iska bedela tolkay laakiin illa dhag iyo dhaban la fujiyo oo waxa weeye la isla dul taago xama fahmaan Abdullaahi Bile teer iyo federaal teer iyo maanta uu Puntland joogo eegay maynis mooyaane saaid ba malahayn maantana hadii hartina la arkay oo madaxweyne ku-xigeenkii Puntland Lugator baa yaabay Lugator baa iscanaantay Lugator baa wuxuu noqday janan noqday saasuu eegay mise wax allaale iyo wax ku dhex jira ninka waa zero cent ninkii uu shalay warqada siiyay ee ina shanle Bashiir shanle kun jeer waa ka xinigay badan kun jeer Bashiir shanle iyo Abdullaahi Bile cirka iyo dhulku inta isu jiraan ninkaasi dani halkaas u galay wax walba waa ku sameeyay dani wax la warinaadiro idaa war inaadiro wax walba waa ku ogolahay idaa war maxaan ku siiyaa war wax walba waa ku ogolahay shatiga dani baa yiri amar ku siiyay Abdullaahi Bile ninka waxa weey ganacsigiisa ka leh isla isagii baa ciidan u ka haystay kuwa dulli ah oo Abdullaahi Bilahaasi ka amar qaata baa loo diray Bashiir shalana shalay isaga xidhay oo godka ku riday oo ciidanka u diray oo dhalinyarada dishay ciidanka iyo hubkii dishisha lahaa Bashiir shalay ku weeraray yiri inta lagu weeraray oo la soo qabtay baa miiriyaha la isla wareegay in Ahmed Harti din dishisha oo ganacsada baa dani jiiday madani baa Bashiir shalay jiidi kara baladeegi hubka lagu weeraray hubka dishay ciidanka weeraray ciidanka dishay odagan meesha iska taagan xitaa kelmadna waa oran kari waay warnig baaba xitaa inta la maago wax iska yiraahda waxaan inuu waxba aan Lugator baa naxay Lugator baa janan noqday wuxuu ruuxan ka liita Lugatorkii lahaa fadhiiso istaag dagaha qabsan lahaa baa naxay waa noo helis ina adeer iyo inaabti wallahi waad noo helisay ma hadeedana waxa weeye abaalkeedana waa ku haynaa aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay hadaad baka intaad naxday adigu intaad naxday hadaad tiri war waxaan reerka ma matalay magaca iyo sharafta iyo karaamada yuu reerka dil saa inta waqtaa tiri war adigu waxba ma matali kartid reerkana ma matali kartid wardiishu show ninkan iska bedelo cid kala keensada cid hal leh oo qable oo madaxweyne aada oo madaxweyne ku xigeen aada oo wax raadsata oo han iyo qable keena baad tiri thank you inaad inta dani waa nagala xishooday dani inta waa nagala baqay sababtoo ah cid hulumbi waana doqono inta ma oran karo nin tolaba inta ku yiraahda kaas u fadhiistay wala kalma ilaahay baan ku dhaartay ninka waxa ay iyo aflagaado iyo qursi lagu dhufanayo ana ismooday waxaan ismooday waxaas inay u dhacayaan taasaan way horta Lugator waa mahadsan yahay tol way idin hiiliyay war qofkani miyaanu diiraynba ilaahay bay ka tahayba taas soo fadhiya ruuxa naaska iska soo bedelay baa lii wasdaafiya afadhiya magaciisi sharafkiisi karaamadiisi
dadnimadiisii diintiisii intaba Lugatoor baa ku tuntay laakiin Lugatoor Cabdullaahi Bilame eegine reer dishiisha la yiraahdo Axmed Harti oo dhan ilaa Axmed Harti oo dhan buu ninka matalay khaasatan dishiisha buu eegay oo yiri waxaan reerka uma qalmo aad iyo aad baa u mahadsantahay maanta waa kaaga mahad celinayaa wanaaga aadna tartay Axmed Harti oo dishiishow niba wax laga hayaa haddaan hadlanay bi waa afsalax ku dhig haddaan aamusana reerkiisa laga diimay waa ka noocaas oo miran way waxa meesha idin jooga gaal iyo islaam midna wax lama qaybsan karaan hadda waa gaal iyo islaam midna wax lama qaybsan karaan ee dadku waa in la hadleene hadaad aqli iyo garasho leedihiin oo damiir leedihiin magaca iyo sharaftu inaga baabiinaya soo dhaafiya meesha tolo intaas aan u idin leeyahay wuxuu yiraaf way hudhudaya hadal buu leeyahay anaba hortaagna خير بركة دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته